السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ملك استوى الدنيا كجوكتان واين سلامي أن أنت تقانا واي تقانا أنت أن يقولنا إن كسو هذا الشوق قاعد مركز تاغبرتين إن أن إذن كسو بندقو بالشدة وحياة بدن وعنفعايو إن مقعيقو ونسترح السلام عليها كان نقدا ونيستان ونصريسهم إن شاء الله إن ما انتو حان كهالينا برنامج كالنلشة أما برنامج كاللايف ستايل كا إن قف كستا سوء يقانو إن ويكستا برنامج كان سو بندقنا إن شاء الله إن channel كيجا أما show كيجا وكسل إسيني هاي إن عنتذا يو life style كا إن قفك مركا وعنتو عنا وحبي هاي إنه بحقبتو أما مسكحي سأو كشقيو أو أن مركز تنا عن جعل هاي برشدنا أصوب بديجو إن هدي عنتا لعنو وحياة بدن أيا لقى فكرة أيا وحياة بدن أيا برشد الله أصوب بديجو أيا إن شاء الله إن ما أنتو حكاهلنا إن برنامج اللي هذا إن إسفهان درada waxaa keenay sida ogsoonahay dhaqankii oo laga tagay saddex waxyaabood ayaan ka hadli doonaa hadii la yiraahdo saddexdaas waxyaabood waxa weeyaan dhaqankii oo laga tagay diintii oo si fiican loo baranin iyo kalsoonidii oo halkaas ka baxday sida qofka markuu uu diintiisa uu si fiican u barto waxa ay tahay ama waxa ay ku saleysan tahay ayuu baranayaa qofka bini'aadamka awal hore waxaan sida for example waxaan anaga dadkeena ka dhaxalnay sida awoyaasheen ayayaasheen waalidiinteena in dariska la ixtiraamo in dariska loo galo in qof dhiban hadii aragtid la caawiyo taasna waxa keenaysa dhaqanka ayaa ku baraayo oo diintana ku baraysa hadii maanta dhaqanka aad ka tagtid oo sida westernka oo kale iska dhigtid dhibteeda ayaa badanayso berito mustaqbalka ilmaha daadashid ilmahaaga dhaqanka aad ku barbaaranin berito waxa leedahay cunigi caas ayuu igu noqday cunigi uu igu xumaaday cunigi hadaad diinta baran dhaqanka aad baran nolosha dhabta aad tusin cunigi dhaxda markuu ka baxo berito waxa leedahay intee iga soo gaaray markaaga hore ayaa waxa ku barbaarisay nolol aan noloshaada ahayn markaan dhahay nolol aan noloshaada ahayn waa nolol qayaali ah oo aad iska samaysatay sida ninka cadaanka ama ninka dariskaaga ama qof ajnabi wadankiisa ah ma hada iska dhigtid nolosha waa ka dhacaysa waxa tahay malahan marka dhaqankaaga haysatid diintaada haysatid dadkaaga haysatid dadkaaga ku dhex jirtid horumar ayaa gaaraysa life-ka nolosha waxay tahay waa ka baranaysa markii diinteena la sii fiiriyo oo quraanka la sii fiiriyo quraanka abaratid waxyaabaha ay gaalada sameynayaan waxa u maleynaysaa inay diinta barayaan naga qaateen sida u naxariis badan yihiin marka xataa wax aawdo ku caawinaa baawar haduu dhaxda kaaga jawo ku caawinaa laakiin markii taas waxa keenayso way naga fiican yahay laakiin anaga inaan ka sii fiicnaan ayaa muhiim ah maadaama anaga dad islaam nahay aan diintina aan naqaano oo aan wax badan aan nolosha dadka ka bari karno ma sha Allah sida isfahan darada waxa keenayo beenta hadii been lagu barto isfahan darada imaanayso hadii maanta ana been ii sheegtid isma fahmeen maanta waa dagaalena hadii aad run aad ku dhaqantid oo runta wax daacad ah ka hadishid waxa meesha ku soo noqonayo kalsoonidii iyo wanaagii iyo muxubbadii iyo jaceylkii in dariska loo fahantid dhaqankaaga inuu muhiim ku yahay waa wax aad u muhiimsan hadii aad dad wax ka faa'iideysid ama wadanka amaatid wax ka faa'iideysid ama waxa ka baranaysid waa muhiim laakiin waxa aad u xun inaad dhaqankaaga meel ku turtid ama meel cilla uga tagtid hadhood waxa kugu adkaanayso in bulshada kala aad u imaaday in ayagana dhaqankooda afaham weyso oo kugu dhacdo hadaa inta ka dhacday hadana inta ka dhacday aad soo noqotid qof meel banaan cilla soo istaagay marka waa ku muhiim inaad dhaqankaaga haysatid waa ku muhiim inaad diintaada haysatid waa ku muhiim inaad afkaaga haysatid afka Soomaaliga hadii aad taqaanid sida Hindida oo kale cuniga Hindiga wadankan ayuu ku korayaa ama Mareykan ama Yurub meesha taabo kama tagayo afkiisa 20 sano haduu jiro xitaa wadanka 20 sano ku noolaa afkiisa kama tagayo laakiin cuniga Soomaali waxa arkaysa afkiisa ka tagayo quraanka aan baranaynin taasna waxa weeyaan lama dhihi karo cuniga dhibta lama saari karo waalidka haduu cunigiisa ka dhigo uu ka dhisay afkiisa dhaqankiisa diintiisa bulshada waxayna ku xiran tahay hooyadii aabaha guriga ku wada nool dii hooyadii aabaha wanaag iyo farxad iyo sharaf ay ku wada nool yihiin cunigaasna wixii waalidku uu ka arkay ku dhaqmaya laakiin cuniga haduu ka arko labadii waalid oo luqad kale ku hadlaayo ama labada waalid aan isfahansaneen oo buuqaayo oo maanta dhan waalid aabihi markuu guriga soo gal gafuurka taagay hooyadii guriga ka soo gashay gafuurka taagay cuniga TV daabana cuniga waana waqti siisa ama ilmahaaga waqti hadii aad dhaqanka ka tagtid cunigina uu dhaqanka ka tago markaas waxay imaanaysaa in bulshada dhan ay wada halaawdo marka insha Allah hadii waxyaabaha qaar aan ka tagay commentiga hoos ku soo qor ama waxyaabaha oo bulshada u baahan tahay waxyaabaha ugu badan ee bulshada u baahan tahay hoos ku soo qor si aan wiiga dambe aan topic ugu soo qaato waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay insha Allah asxaabay aan iska tiirino
qalbigan ha la isku furo haddii qalbiga aan la isku furin oo qalbigaaga uu nadiif ahayn oo ana qalbigaaga uu nadiif ahayn bulsho nadiif lama helaayo marka waa inoo muhiim in qalbiga la isku furo oo la isku wada faraxsanaado la isna garab qabto haddii qof maanta walaalka uu barnaamij soo bandhigo aad caawisid maskaxiyan aad ku caawisid aad dhiirigelisid laakiin dad qaar waxaad arkaysaa bulshada haddana waxaa inoogu badan xasidnimada wax fiican ma aha haddii adeeqa xasid qofkan ku noqoto adna xasidaa beri lagugu noqonaya marka insha allah barnaamijkan intaan ayuu noogu okaan doonaa wixii aan ka tegay ama wax qalad aan dhahay ilaahay hanaga cafiyo wixii muhiim inoo ah hoos ku qor commentiga waa inoo muhiim insha allah subscribe garee like saar share garee si saaxiibadaada kale uga faa'iidaystaan markastana haddii asxaabtaada aada la share garaysid oo barnaamijkan u arko waxaa ku fiican in ay fahmaan insha allah waxaana muhiim ku haddaa subscribe garaysid message ayaa kusoo dhacayo ama email ayaa kusoo dhacayo halkaas ayaad inagala soconaysaa insha allah cuntada iyo lifestyle-kana waa wax labada nolosha qofka looga baahan yahay insha allah asxaabay ciid wanaagsan ciidda ayaa foodi noogu soo leh waxyaaba badan oo idin xiisa geliya ayaa daawan doontaan insha allah waxaan idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu